waxaan rabaa marka hore inaan soo dhaweeyo agaasimaha SEMA oo shaqo fiican halkan ka soo qabtay. waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo saaxiibadeyda ka yimid agaasimayaasha guud ee maamulada goboleedyada aan dhexe wasaaradaha amniga gudaha. waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo UNMAS oo iyadana shaqo fiican ka soo qabatay iyo saaxiibada kale ee nagala shaqeeya howlahan miino baarista ama ka hortagga walxaha qarxa sida lagu yiraahdo af Soomaaliya. shaqadan waa shaqo muddo soo socotay. waxaa mar walba muhiim ah isku xiridda, isku duwidda iyo howlaha socda labada heer ee mid federal iyo mid dowlad goboleed. sida ka muuqata mawduuca maanta laga hadlayo oo halkan ku suntan ah aragtida midaysan, tallaabo isku dubaridan sida looga hortago ama loo horumariyo horumarinta miino saarka bini'aadanimada ee Soomaaliya. taa waa inay ka turjuntaa halkaan u soconno hiigsiga aan leenahay. walxaha qarxa oo waayihii dambe aad ugu soo badanayay dalkan sidii ummadan dhibkeeda looga qaban lahaa. taa baa tahay kulankan maanta waxaan u wada joogno oon u wada falanqaynayno. waxaan arkaa marka in ay muhiim inoo tahay dhammaanteenba in si wadajir ah aan hawsha uga shaqayno, si dhow aan fikradaheenna isu dhaafsano, dabadeedna aan ka soo saarno barnaamij markaa intaa kabi kara oo Soomaali ka badbaadin kara waxyaabaha qarxa. taa ayaan idin rajaynayaa. waad mahadsantihiin dhammaantiinba ka soo qaybgalkiina marka waa idin mahadcelinayaa. waxaan jecelnahay in shirarka xiga ee aan qabanayno aan idinku casuuno meel halkan ka baxsan ama jaziiro ah ama hoteelada kale magaalada gudaheeda ah inaan ku qabanaan jecelnahay haddii Ilaahay raalli ka noqdo. shirarka noocan oo kale tan aan badino. waa idin mahadcelinayaa dhammaantiin. waan u mahadcelinayaa bahda saxaafadda oo iyaguna in badan nagala shaqeeya howlaha hortabanta u leh wasaaradda amniga gudaha. waa mahadsantiin markale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.